sunniyahaaga waxay wax badan ka sheegi karaan dabeecadahaaga iyo nooca qofka aad tahay. cilmi baaris uu Hanner ku sameeyay sunniyaha waxaa la ogaaday in sunniyuhu ay u qaybsamaan 12 nooc, waxayna wax badan ka sheegi karaan shakhsiyadaada. dadka sunniyahooda ay u eg yihiin qaabka saddexagalka ah waa kuwa hogaamiyaal ah, halka kuwa sunniyahooda ay u samaysan yihiin qaabka diagonalka ay yihiin kuwa xamaasad badan. ugu horeen fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. waadna ku mahadsantiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. okay, haddaba aan u galno. sunniyuhu waxa ay u kala baxaan 12 nooc. haddii aan ka bilowno nooca koowaad, sunniyaha wareegsan. haddii aad leedahay sunniyaha noocan ah, waxaad tahay qof naxariis badan oo mar walba ka fikira baahiyaha dadka kale. dadka noocan ah marka ay go'aan gaarayaan waxay ku saleeyaan fikradahooda iyo fikradaha dadka kale, taasoo keenta guul iyo isgarab istaag. dadka sunniyaha toosan. haddii sunniyahaagu ay yihiin kuwa xariiq toosan, waxaad tahay qof caqli badan. dadka leh sunniyaha noocan ah waxay qiimeeyaan caqliga, waxayna u malaynayaan inaad si taxadar leh uga fikirto arrimaha, mana ahan kuwa degdeg badan. sunniyaha dhanka sare u baxa qaybtiisa dambe. dadka noocan ah marka ugu horeysa oo ay ku arkaan waxay kuu malayn qof daneyste ah oo isla weyn. waxay gaaraan go'aano ku salaysan shucuurtooda oo dhaqso ay wax walba u sameeyaan, aad ayayna u falceliyaan. sidoo kale haddii ay jiraan wax ay isku dayayaan inay go'aan ka gaaraan, si dhaqsi ah ayay u qaataan. sunniyaha fiiqan ee saddexagalka ah. haddii aad leedahay sunniyaha noocan ah, waxay calaamad u tahay inaad tahay qof dareen dhab ah oo qaab iyo quruxba leh. waxaad noqon kartaa mid isdhaliila oo ka walwala go'aan qaadashada qaldan, laakiin waxaad tahay qof dadka hogaamiya. dadka sunniyaha dhaadheer waa kuwa leh saaxiibo badan, sababtoo ah waxay u adkaysan karaan dhib kasta. waa kuwa degan oo lala dhaqmi karaa, aad ayayna u firfircoon yihiin. waana kuwa marka ay dhibaato soo gaarta iska xaliya iyagoo aan cidna la wadaagin. sunniyaha gaagaaban. dadka leh sunniyaha gaagaaban ma jeclo waxqabashada. waxay u badan yihiin inay yeeshaan saaxiibo u dhow oo ka sii hooseeya, mana jecla inay dadka kale caawimaad weydiistaan. dadka leh sunniyaha dhumucda weyn. haddii aad leedahay sunniyaha noocan ah, waxaad tahay qof kalsooni buuxa ku qaba naftiisa, si gaar ah uma danaysid waxa ay dadka kale kaa aaminsan yihiin. waxaadna jeceshahay inaad ku noolaato nolol qurux badan. waxaad leedahay go'aan qaadasho adag, waxaadna jeceshahay inaad wax walba ogaatid. sunniyaha aadka u dhuuban. dadka noocan ah waa kuwa aan khilaaf badnayn oo gebi ahaanba iska ilaaliya, waana kuwa dadka si degan u dhagaysta. dadka sunniyaha xagal dhirirka ah waa kuwa aragti waara ku reeba qof kastoo ay la kulmaan, waxayna had iyo jeer helaan wadada ugu dhaqsaha badan ee guul lagu gaaro. sunniyaha aan muuqan. dadka leh sunniyaha khafiifka ah ee aan muuqan waa kuwa ka shakiya dabeecadahooda iyo awoodahooda, waana kuwa xishood badan, mana jecla inay dagaal galaan. waa kuwa degan oo aan hadal badnayn. sunniyaha hoos u baxa ee isha u dhow. dadka noocan ah waa kuwa xaalad kasta lagu kalsoonaan karo, waana kuwa caadi ahaan leh shakhsiyad soo jiidasho, waxayna awood u leeyihiin inay dhisaan xiriiro dhab ah oo waara. dadka leh sunniyaha caadiga ah waa kuwa dhaqan iyo dabeecad wanaagsan, isla markaana dadka kale ka farxiya, waana shakhsiyaad ay dadku jecel yihiin. ugu dambayn, haddii aad ka heshay like saar si aan u soo badino muuqaalada noocan ah. mahadsanid.